السلام عليكم كسو دوادا قصة رمضانكا مالن عيده ayaa waxa oo soo gashay Umar bin Abdul Aziz gabar yar oo dhalay oo ooynaysa markaasoo Umar gabadhiisii ku yiri maxaad la ooynaysaa gabadheedii waxay ku tiri aabo ilmaha asaagayga ah waxay ku ciideen dhar cusub aniga oo dhalay amiirkii muslimiintana ma haysto waxaan ku ciido Umar ayaa hadalkii saameyn ku reebay wuxuuna u tagay ninkii hayay hantida muslimiinta markaasuu wuxuu ka codsaday inuu siiyo bisha soo socoto mishaarkeeda ninkii ayaa ku yiri Umar maxaa ku qasbay arintan Umar ayaa u sheegay qisadii ku qasabtay kadib ninkii furahayay ayaa wuxuu ku yiri Umar dib ma lahan lacagta waan ku siinayaa balse waxaan kugu siinayaa hal shardi markaasuu ku yiri Umar muxuu yahay wuxuu yiri waxaad ii balan qaadaa inaad sii noolaa doonto bisha soo socoto mishaarkaana aad butaysan doonto Umar ayaa su'aashaasi jawaab u waayay kadibna wuu iskaga soo tagay carruurtiisii ayuu ku soo laabtay markaasay ku yiraahdeen aabo maxaad noo keentay Umar ayaa la hadlay carruurtiisa ku yiri ma sabraysaan oo dhamaanteen waxaan galaynaa jannada mise sabri maysaan oo abihiin wuxuu gali doonaa naarta carruurtii ayaa ku yiraahdeen aabahood aabo waan sabraynaa qisadeena halka ayay nooga eg tahay qisadan waxaan ka qaadan ayaa waxay tahay inaan mar waliba ilaalino aakhiradeena waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan haddii aad ku cusub tahay janalka maalmaha fadlan subscribe dheh si ay kuu soo gaaraan muuqaalo cusub aan soo dhigi doono mahadsanid يا رب فاقبل صومنا وأعده عاما بعد عام يا رب صل على الذي فاقت محامده الأنام وأظلنا شهر السلام ضيف يزور بكل عام فإذا أهل هلاله في الكون ينحسر الظلام